بسم الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وبعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. labada darise la qoondeeyey siduu walaalku sheegay waxay ku saabsan yihiin الشبهات والشهوات. madmadowga dadka diinta laga geliyo iyo dariiqa xaqa ah iyo shahawaati nafs, waxyaabaha naftu ay jeclaysato ee baadinimada keena. midna xagga caqiidadu galaa labadan shay, midna xagga acmaasha ayuu galaa inta badan. waxay culammadii hore odhan jireen labadani waa aslaa shari fi lwujuudi alinsaani bay dhahaan. sharka bini aadamkaba labadan baa u asala. waa laba xanuun oo ku dhaca qulubta qofka bini aadamka ah oo ka fogeeya ilaahay cabsidiisa. ilaa xad ay bacd alculamaa ku tilmaamaan afdalu nnaasi man lam tufsid الshahwa diinah walam tazil الshuhba yaqiinah. dadka waxa u fiican bay dhaheen ninkan diintiisa aanay shahwaatu nafsigu ka fasahaadin ama yaqiintiisa iyo iimaankiisa aanay ka khalkhalgelin shubahaadka. ee aakhiro wuxuunbaa badbaadaya yowma laa yanfacu maalun walaa banuun ilaa man ata allaha biqalbin saliim. waddannada muslimka markii la joogay, marka shubahaadka laga waramo inta badan waxay ahaan jireen shubahaatu ahlilbidac. dadka bidcaadka ku dhacaa waxyaabaha qaldan ay ismoodsiiyaan inuu sax yahay ee ilaahay ku caabudaan. laakiin duulkiina halka jooga waxay inta badan iyagu la kulmaan waa shubahaatu ahlilkufr. waa madmadowga dadka laga gelinayo rumayntay diintooda rumaysan yihiin, hadday tahay arkaanuliimaankii iyo hadday sharaa'icda tahayba. ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo rusushiisii iyo kutubtiisii iyo qiyaamaha iyo jiritaankiisa iyo ghaybkao dhan. shubhadu marka fi luga waa aliltibaas waalikhtilaat. waa shaygoo dheehma, xaq iyo baadilku aad kala saari kari weydo, oo qofka maxaa xaq iyo maxaa baatila waxyaabaha u kala caddayn kari waaya. haddaba shubhadu inta badan aynu tilmaamayno ama aan rabno inaynu wax ka tilmaamno waa shubahaadka caqliga ee diiniga ee caqadiga ee qofka diintiisa ka xumeeya. waana xad hadduu shubhadaasi qofka galo waa marad. ilaahay uu qur-aanku inta badan munaafiqiinta iyo kafarada iyo ahlu shakiga iyo dadka noocaasiya u kaga waramo fii quluubihim marad fazaadahum allahu marada. ilaahay ku tilmaamayo waama aladiina fii quluubihim marad fazaadathum rijsan ilaa rijsihim wamaatuu wahum kaafiruun. waa marad marka koowaad inta badan masaa'il fudud ku bilaabma, laakiin marka dambe diin la'aan dadka bada. marka dambe diin la'aan dadka bada. een kama hadlaya in badan shubahaadkaasi iyo radintooda. waxaa laga yaabaa goobo aan tan masaajidda ahayn ama meelo kale in lagaga hadlo, laakiin waxaynu tilmaamaynaa feejignaanteeda iyo sida loo daweyn karo.
oo asiiba dadkan waaweyn ee waayeelka wax iyaga la gudboon ubadkii iyo dadkii in looga feejignaado mashaakilka kan iyo siyaabihii loo daweyn lahaa shubahaadka qaarkood waa طائف من الشيطان oo waxaa ku filan alisticaada waa waxaan bini aadamka qalbigiisa degana khawaatirun ku soo dhacdaya oo inta badan qofku iskaga difaacayo sidii xadiidkii nabigu uu sheegayay inaad shaytaanka iska naartid acuudu billaahi min ashaytaan alrajiim shubhaadka qaarkoodna inta lagu celceliyo jawaanib badan laga keeno ayay degaan dadka badh kuwaasi waxay u baahan yihiin fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun in dadka aqoonta u leh waxa kan la weydiiyo ilaahina subxaanahu wa tacaala kitaabka qur'aanka ah ma jirto iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam gaala shubha ay soo arooriso aanu ka jawaabaynin ilaahay nabigiisi muxamed calayhi salaatu wasalaam ba wuxuu ku leeyahy walaa ya'tuunaka bimathalin ilaa ji'naaka bilxaqi wa axsana tafsiira wax kastoo ay kuula yimaadaan waxaanu kuu keenaynaa baa ilaahay leeyahy subxaanahu wa tacaala wax fardaamin kara oo xaq ah kitaabkaasi ilaahay wuxuu ku tilmaamay wanazalnaa calayka alkitaaba tibyaanan likulli shay wahudan waraxmatan wabushra lilmuslimiin kitaab baanu kuu soo dejinnay wax walba kuu caddaynaya baa ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala wax walba caddaynaya oo hanuun iyo naxariis ay ugu sugan tahay dadka rumeeya dhibteennu se waxay u badan tahay kitaabkaynu ghaafil kannay oo wixii wax daweynayay ayaynu moogannahay waxaa laga yaabaa dadka intiisa badani inaanay akhriyi karinba inta akhriyi kartaana inteeda badani inaanay fahmi karin inta wax ka fahmi kartaana in badanoo ka midi waxay u baahnaayeen inaanay kala soo bixi karin ka istinbaati karin ayo inaad darajadaa gaadha waa masale dambe laakiin waxay leenahay xaqiiqa ahaan wixii loo baahnaa isagay ku jiraan rusushana hadduu kayla hadlayaan mulxid yaana ilaahay jiritaankiisa rumaysnayn iyo hadduu yahay ku ilaahyo badan rumaysan iyo hadduu yahay ku aakhiro inkiraya iyo hadduu yahay ku rususha inkiraya qur-aankan baa la yidhi nebiga kula hadal calayhi salaatu wasalaam lama odhanin meel kale daliil uga baadi doon waayo rususha daliilo kale waxyigaasaa la soo siiyey taa macnaheedu waxa weeyaan dadkan dhammaantood bikulli fi'atihim isku dar hadday malaaxida yihiin hadday ilaahyo badan caabudayaan hadday aakhiro dafirsan yihiin hadday rususha dafirsan yihiin hadday malaa'igta dafirsan yihiin intaba ilaahay wuxuu kula hadlayaa qur'aanka kan taa macnaheedu waxa weeyaan intaas oo mas'alo oo la tilmaamayo xujadii aad u baahnaydee dad lagu qancin kari lahaa waxay ku jirtaa qur'aanka kan waxay ku jirtaa qur'aankan laakiin dadka markaa diintoodana jahli kaga dhaco isla markaana fitankana ay mucrad u yihiin ay u banbaxaan meesha beledu taallana siduu u badbaadayaa su-aashu waa kaas yacni waxaa laga yaabaa sayfid shal ciddii ku jirtay waddankiisii iska joogtay dad isku wada diina oo caqiido qura wada rumaysan oo caynkani aqoon badan ba ayaanu lahayne bulshadaa iska dhex socdo inuu badbaadayo laakiin markaad adiga iyo ubadkaaguba u soo banbaxdeen meel kale wada diina bale diimaha dagaal ugula jiro bale waxay yidhaahdaan trendka ugu badan hadda ee la filayo sanawaadkan inuu kor u socdaa waa 3 qadiyadood bay yidhaahdaan
waa atheism qadiyadda diin laawanimada iyo ilaahay ma jiradu kor bay uga socotaa galbeedka qadiyadda shuduudka iyo ragga ku kaaftoomaya waxa la mid ah iyo faafinteeda iyo dhigisteeda iyo qaanuun samaynteedu kor bay u socotaa qadiyadda mukhaadaraadka iyo taqniinkeedu in la qaanuuneeyo stabiskeedii baa bilaabay iyana kor bay u socotaa waxaan filayaa waqti aan sii fogeyn inay mukhadaraadku la noqon doonaan sida khamriga iyo sigaarka iyo kuwa dushuun lagaga qori doono waa khatare naftaada ka ilaali iyo waa lagu dhintaa iyo waxaa inta dusha lagaga qoro in la odhan doono xorriyadda dadka iyo xuquuqdooday ka mid tahay oo ay dadku iibsan doonaan saddexdaasiba xog bay uga socdaan galbeedka saddexdanina waxay ku saabsan yihiin labada mas'ale aynu tilmaamayno darsigeennan iyo ka dambeeya saddexdaba dawadoodu ilaahay kitaabkiisay ku jirtaa laakiin innaga markaa waxaa ku kulmaya dadka kan jahlun biddiin oo ah qofkani wuxuu diin u haystaa xoogaagii uu maqmaqli jiray reerahooda uu ka soo maqlay berigii uu waddanka joogay wixii uu meelaha ka maqmaqlay wax sax iyo wax qaldanba laakiin meel la taqniiniyey oo la nidaamiyey kufriga iyo sida loo dhigayo la taqniiniyey xumaha iyo sida loo sharxayo wax walba xorriyad iyo xuquuq laga dhigay oo qaab xorriyad bini aadam iyo xuquuq bini aadam ah loo soo bandhigayo oo shubahaadkaasi tiro badan iyo si laysaga celin lahaa waa adagtay qofka ahlu cilmiga waa laga yaabaa masaa'ilka qaarkood inay mugdi ka galaan hore u garan kari waayo laakiin dee masalaad kun daliil u haysato xataa haddaad hal masale ka garan kari weydo wax badan qofka kuma samaysa saa ogeed baa ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa wamaa yaclamu ta'wiilahu ila allah waalraasikhuuna fi lcilmi yaquuluun aamanaa bihi kullu min cindi rabbina kuwa raasikhay baa ilaahay yidhi iyagu wixii masaa'ile xagga alle ka yimi way tasliimaynaya xataa hadduu masalada hore u garan kari waayo waayo dee masaladaad kun adilla haysato hal shubho loogama tago haddaba hadda waxaa badan nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkii uu tilmaamayey xudayfata bnulyamaan saxaabiga la yidhaahdaa wuxuu yidhi dadku nebiga khayrkay weydiin jireen aniguna sharkaan weydiin jiray buu yidhi anigoo ka cabsi qabo sharkaasi inuu soo gaadho dabeetana khayr baanu hadda haysanaa khayr ma ka dambayn doona shar ma ka dambayn doona haabuu nebigu yidhi khayr ma ka dambayn doona khayr baa ka dambe wafiihi da wuu soo waday nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu markii dambe ku yidhi waxaasoo dhan waxaa kasii dambayn doona ducaatun calaa abwaabi jahannam man ajaabahum ilayha qadafuuh duul jahannamo dadka ugu yeedhaya maalan ilxaadka oo kale taariikhda dheer oo bini aadamku ka mid yahay oo qaybo falaasifada ka mid oo mulxidiini way jiri jireen laakiin mulxidku kuwa aan ilaahay rumaysanayn maxay siday u noolaayeen filosofkii holandiis miyuu ahaa spenouza la odhan jiray ayaa wuxuu leeyahay cala almulxid assumtu walictizaal buu yidhi assumtu walcuzla waxay ahaan jirtay buu yidhi qofku markuu shakigu galo ee waxa kan uu ku dhacaan inuu iska aamuso oo keli iska noqdo nolosha ka qanco oo waxa kan waayo qofkaasi tuunal madow buu galay tanal madow noloshoo dhan baa mugdi noqonaysa sababta waa maxay qofkani wuxuu garan waayayaa why am I here maxaan u noolay maxaan halka ka qabanaya maxaan ka shaqaynaya xagaan ku socdaa xagaan ka yimi noloshu maxay tahay therefore wuxuu ka baxayaa noloshoo dhan wuxuu arkayaa meaningless alxayaa kullaha waxaan qiimo lahayn buu u arkayaa noloshoo dhami dhadhan yeelan mayso hayaba inaad adigu tidhahdo ilmo muxuu wax u baran waaya muxuu shaqtay mise arkaba inay qiimo leedayba wuxuu arkaa inuu dhintaa inay ka roontay inuu noolaado waayo wuxuu rumaysan yahay kadeedkeedaabaad ka raysan lahayd haday kaa baxdo noloshan warwarkeeda iyo fikirkeeda iyo kadeedkeeda
waa laga yaabaa inaad la yaabtaan lakin waxaa laga yaaba kuwa yarara gurigiina jooga haddaad weydiiso inuu ku leeyahay intaasoo goorban isku dayo is yidhi ku fakeri ma istishaa baan ku fakeray. kuwa waaweyne profesorada ayaa kuwanba saa u fakera. haddaba hadday waagaa hore ahayd waxyaabo qof intuu shakigu ku dhaco uu meel cidlaa iska fadhiisto ama isagu isku mashquula ama istila ama saa imka waxay noqotay meel ducaad preachers dad baaba faafinayo ku dhawaaqayo oo xuquuq ka dhigayo oo le bini aadamku xaq buu leeyahay inuu diimaha ka tago, bini aadamku xaq buu leeyahay inuu shudu sameeyo, bini aadamku xaq buu leeyahay xorriyaad iyo xuquuq iyo kan iyo lawyers iyo qawaaniin iyo dowlado iyo mujtamacaad dhan oo xumaha guide garaynaya oo ilaalinaya oo dhigaya. ugu horeyn ilaahay qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamay horta inaynu ilaahay barino. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إنه إلهي ويديسنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. إلهي أنت نهانوني سيكدب قلوبت يدها ويعنين كوا أنبضة هانا قدقين شبهاتكو هالدباء لما قربي دادك وحيالان قلة العلم أو ضعف البصيرة بين هذا أقون درو إلهي وحي قيس له أقون درني إيا أركت حما نالش هاللغو أركت حميهي أما بصيرة دا قفكو يتدبر كيسو الليتو ويا إلهي وحكستو الدين تيسا خلافة وحكو المامية إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. إن يتبعون إلا الظن وملأ وحا أي راعي أنبا إليه والشبهات ووحي اسمه تسيين حقيقة ما جرته إيا وما تهوى الأنفس وحي نفط دونطي إن نفط الله سيو freedom إنه وحي دونط سمين كرته qofku wuxuu doono inuu tijaabin karo, cabbi karo, fuuli karo, wuxuu doono inuu samayn karo. ilaahay wuxuu ku tilmaamay markaa dadka waxyiga diidani waxa ay rabaan waa labadan uun. waa dadka madowga ku sugan. ay professor weydii mulxida what is the meaning of life day? noloshu maxay macno leedahay? waa maxay macnaha noloshu? maxaad u nooshay? waa no answer. cid ka jawaabi kartaa ma jirto. waayo allihii bini aadamkana abuuray baa ka jawaabi kara un waxa loo abuuray. gaadhigaa ninkii sameeyuunbaa kuu sheegi kara waxa loogu talagalay. shay kasta ciddii samaysuunbaa taqaanaa, laakiin shayga la sameeyey isagu ma yaqaano wuxuu u joogo. therefore markay waxyiga ilaahay diidaan waxay ku soo noqdaan uun mas'ale ah lama garanayo, jawaab lama hayo. ma la rajaynayaa in jawaab la helo? maya, iyana ma jirto. waayo wuxuu hadduu maadadan hortaalle laabka la geliye la wadwado hadduu dhaafo waxaa ka dambeeya jawaab ma leh. cidda ka jawaabi kartaan waa alle subxaanahu wa tacaala. sidaa ogeed baa ilaahay wuxuu tilmaamayaa walaa tattabici alhawa fayudilaka can sabiili illah ina aladiina yadiluuna can sabiili illahi lahum cadaabun shadiid bima nasuu yowma alxisaab. waxay ugu sii daran tahay lumista caynkaasi iyo marka haddana inta la qurxiyo magac kale la saaro. bini aadamku bay yidhaahdaan abuurkiisa waxaa ka mida bini aadamka waa ilaahay subxaanah wa tacaala uu ku abuuray ayan kaan ha ahaadee xumaha inay naftu diiddo. ilaa xad uu nebigu leeyahy alithmu maa xaaka fi nafs, inay naftu diiddo. sidaa ogeed bini aadamku isagoo raba inuu xuma sameeyo ma yidhaahda xumaan samaynayaaye jas magac kaluu u bixiyaa suu isu qanciyo. maalan dowladahani markay
dowlad yaroo miskiinadan waxba aysan lagu duulayo ma yidhahdaan tan dowladdan yar baanu afka soo jebinaynaa ama lama yidhaahdo shidaalkeedaan rabnaa inaan soo qaadano ama inaanu soo boobno waxaa la yidhaahdaa shacabka xorriyadda la siinaya iyo dictator baa magac kalaa loo bixiyaa wuxuu isku qancin karo qofkiiyo waa aqbali karaa lagu tilmaamaa xumaha marka la tilmaamayo la odhan maayo waa xumo waa xorriyad iyo waa xuquuq iyo erayo kaloo bini aadamku uu jecel iyo agtiisa qiimo ka samaynaya ayaa dheeha kalaa la saaraa si awgeed baa ilaahay wuxuu leeyahy afaman zuyina lahu suu'u camalihi fara'aahu xasana faina allaha yudilu man yashaa wayahdi man yashaa ilahay wuxuu tilmaamayaa ma mid loo qurxiyey camalkiisii xumaa oo u arkay inuu wax fiican yahay camalkiisii xumaa baa loo qurxiyey markaasuu mooday wax fiican inuu yahay kaa iyo dee ninka xaqa arkaya may siman yihin ilaahay baa faina allaha yudilu man yashaa wayahdi man yashaa idan ayuha alaxiba maanta dunidan aa ku nooshihiin inkastoo laga yaabo dhul fog oo aydan filanayninba in qurunkani gaadhay waayo dunidu badkan mubaashirka iyo tv-gan iyo netkan iyo waxaan isku xidhan dunidii waxay ka dhigtay maxay meel isu furan waxay idhaahdaan taariikhdii hore bini aadamku cadowgiisa dagaalkaasuu isaga ilaaliyo qalcad buu samaysan jiray bay yidhahdaan qalcada iyo suur dabeetana inta gudooda la galo dee ninkan faraska watiyo seefka watiyo leebka watiyo wax wata aanu ku soo gaadhaynin xadaaraddu waxay gaadhay bay yidhaahdeen hubkii la samaystay qalcaddaa in la dumin karo ama madfac ha noqoto ama dayuuraddan iyo waxna noqoto marka ma jiro nin meel isku qarin karaa oo oodan karaa waxay markii hore ta kale afkaarta iyo waxaasina cidda meel haddaad tidhahda ha iga soo gelinoo xad aad ka samaysato xuduud yeelato oo aad u diiddo dadkaasi inaanay fiisa la-aan meeshaada ku imanin waxay ahayd maca afkaartiisa inuu kaa joogo maxay halkaa uu kaa joogay technologiga cusub wuxuu sameeyey inaan ninnaba meel wuxuu ku qarsan karin ninnaba marka gurigii aad adigu dhisatay carruurta iyo islaanta ku xaraysataa laga dabagalay iyadoo aan cidina adiga fasax ku weydiisanin dabeetana waxay u baahdaan oo dhan meesha gudaheeda bahalka yarow gacanta ku sito ayuu ugu jiraa marka meel badanoo lagu dhuuntaa ma jirto laakiin wax waliba xal bay leeyihin waxa uu dadku u baahan yahay waxa weeyaan mushkiladdii waa tanoo waa aragnaaye xalkeedu muxuu yihi ma inaynu isdhiibnaabaa xalkeedu qur-aanka ilaahay wuxuu tilmaamaya wajacalnaa minhum a'immatan yahduuna biamrina lamaa sabaruu wa kaanuu biaayaatina yuuqinuun waxay dhahaan labadan mas'ale aayaddana ay sheegtay labadan xanuun aynu sheegnay waa dawadooda ashubahaat washahawaat shahawaatu nafsina asabr ayaa lagu daweeyaa bay yidhaahdaan waa can ilmacsiya iyo maladaadkeeda in laga sabro cibaadada in lagu sabro sabr baa lagu daweeyaa bay yidhaahdaan tan kalena dee yaqiin baa lagu daweeyaa yaqiintu adila ku dhisan caqiida lagu daweeyaa waa in shubhada tan qofka qalbigiisa laga saaraa marka cilaajka naafica ahi inta aynan shubahaadka xabad xabad uga hadal aan la odhanin ilxaadka maxaynu ka nidhahnaa kaa maxaynu ka nidhahnaa kaa maxaynu ka nidhahnaa kaa maxay intaanad waxaa ka odhanin waxaa ka horeeya asaaska inaad binayso asaaska inaad binaysaaba ka horeysa oo ah dadkanaynu dhalle iyo ummadeenna iyo nafteennaba inaynu iqaamatulxuja cala annaas samayno inaynu marka hore dadka diinta caqiidadooda dhisno intaynan shubahaad ka reebin qofka hadduu caqiidadiisu si fiican u dhisanto shubhada wuu iska celin karaa laakiin haddaan usuushaba dadkan la barin shubahaadkana loo bandhigo waxaad rajaynaysaa muxuu noqonayaa marka ilahay qur-aanka wuxuu leeyahy faclam annahu laa ilaaha ila allah wastakfir lidambik
وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم بربا إلهي لي يقرأ أنه لا إله إلا الله أقوم بي أبا هانتي إذا وحلنا أقوه الرين شيء كواد وإقامة الحجة على الناس وضدك أصول العقيدة إني نور دقنه أصول العقيدة إني نور دقنه هدانا دور دقين وأدكتي صدح ذا وحان شيء مدنا بينت كعلسه والله يا صدح ذا بين هذا تقول نعبتي إنه الماء ملحد نقضين أطربين إنه شوات كبيرين أطربين إنه دروغستي إنه عن نقضين أطربين لكن كاسي واحد شيء يسي واحد سمين سامت المامية واحد سمين يسي كواد علاجه هي وحوية هي إن عقيدة الصحة إنه مركه هردت كبر عقيدة صحة وإلهي كتاب كيسا أدلة كفلا هديت أدلة جريتان كصابصا هديت أدلة كصابصا صدق النبوة هديت أدلة كصابصا قيامها أدلة دوبهي هدي وحلا لي وحي إنه مسألة كورمينا ما غيبها تا مشاهدات وحي دون تبها النقطة أدلة ديدا وعقلية انت إن شرعي وتجد وهي قرآن كندتك اللي يقولها اللي ما بيرو ما يسنين مركه هوري نبي محمد قالوا يجيبي سو قال ما يهدتكم دبتنا القرآن بس يدوق يصدا كنا بالا لها قال كان القرآن مع السوغان ما يسنين بالا وحلة المامي مسائل كان هنا اللوتشكيين وعقلي يسجليان inay ka dhaadhicinayaan ilaahay jiritaankiisa iyo rasuulka rasuulnimadiisa iyo aakhira jiritaankeedaba isagoo gaala lagula hadlayay inaga waxaynu haysanaa quraanka in dadka muuminiinta lagula hadlo gaalka maxaa lagula hadlaya markaa maadaa wax kale keenaya ilaahay nabi maxamed quraankan buu dhiibay oo yiri ku dheh qul meedana ku taala ku dheh oo saa u sheeg hadday saa ku yidhaahdaan saa ku dheh shubahaadkooda ilaahay quraanka tirinaya saasay yidhaahdeen saadaba ilaahay leey saasayda waxay shubha yiraahdeen quraanka dhexdiisa ka helaysa oo ilaahay ka jawaabayo subhanahu wa ta'ala idan waxaan leenahay aqiidadan wixii lagu dhisi lahaa ee gaal iyo muslimba loogu dhisi lahaa loogu sheegi lahaa dad qof rabto inaad diin u sheegto waxa ugu fiican aad u dhiibto waa kitaabka quraanka taan luqa carbeed garanayn bal ala aqal kitaab tafsiir oo afkiisa ku qoran inaad u dhiibto ahsan shay أما بروفيسور هذا أما وحد دوران هذا أما نكليرا كنت تخصص أما وحد دوران كنت تخصص إلهي قف كان أبو ريكن بو سودتشي لو ما أوران هذا عقلك وحقد ضيد يو هذا وحكون ده عندنا كم أورانين لكن واحد نوبة هنا إنه كتاب كان فهمنا مرك ما دام يستقل لوجو طلق علي قال يا مسلم بين لوجو الله وح لوجو شيء وحي آدم دلين لوجو الله هي وحي جنبا كاتر سلام kitaabkan waxaynu u baahannahay asalka ah inaynu dadka u dhigno isagaynu ka helaynaa mas'alo kastoo layna weydiiyey jawaabteeda laakiin waxay ku xidhantahay madaa fahmina inta aynu ka garanaynay ku xidhantahay jawaabtaas aynu kala soo baxayna aqoonteennu intay gaadhsiisantahay aynu kitaabka u leenahay kaasi waa qodob koowaad aan tilmaamayo diinta inaynu dadka barro وحجتي نبي محمد لو سو ديبي كو اوغنو حتى كان رومين انو حجده كو اوغنو وهي قران كو نبي عليه الصلاه والسلام وحشاغ اخر انبياء ان ايمان ساعد بالله سعون اما ميد لا سعوده اما لبا لا سعودان maxay noqdeen anbiyadaasi may guulaysanin miya maya anbiyada shaqada loo diray way qabteen oo maxay shaqada loo diray waa dhowr mid uun inay noqoto inay xujada markay dadka u sheegaan inay dadku rumeeyaan kuwa waxa la yiri taskiyatu nafsiya tacliim buu sameeyaa inay tababaraan oo naftooda tahiraan oo waxyiga baraan oo diinta baraan oo kuwa kalena waa iqaamatu alxujjati calayhim aakhirina inay cudur daar helin waa nabiga kan shaqadii loo soo diray hadday raaci waayaan xujadu ku oogay aakhirana عذر دار إلهي كما هليا سبحانه وتعالى هو نبي قرآن كإلهي وهو كتل المامية عدنا ينان عذاب وما كنا معذبين حتى نبعث رسول ما عذابنا عدنا ينان رسول صدر الرسول كان هداني الربينين فرعون إلهي ووغا ينان الربينين محل هو صدر مسين حجدك ووغو
ruuxan aakhira inaanu odhanin waxba aniga ima soo gaadhin iyo waxba garan maayo inaanay odhan. idan xujada inaynu oognaa oo dadka diinta barnaa labada mid un bay noqon, ama way islaamiyo diintay qaadan, ama aakhiray cudurdaar waayo ilaahay subxaana wa tacaala agtiisa aanay cudurdaar ka helaynin. kuwaynu dhallayna waa la mid, iyo kuwaynu la dhaqanna iyo kuwaynu wada noo dhamme, inaynu xujadaa ku oogno dadka diinta wada barro. haddii kale innagaa dee dambaabayna. nimankii reer banu israa'iil ee magaalada deganaa ee laga mamnuucay sabtada inay ugaadhsadaan, markii lagu yidhi war maxaa wax ugu sheegaysaan, maxay yidhaahdeen? macdiratan ilaa rabbikum walacallahum yattaquun. ilaahay inaanu cudurdaar ka helo, xujadii inaanu ku ognay inaanu caddayno, iyo haddii dee qalbigooda diini gelayso inay ilaahay ka cabsadaan subxaana wa tacaala. idan waxaan leenahay asalku waa inaynu dadka diintan iyo qur'aanka kan u sharaxnaa, u sheegnaa, gaadhsiinaa, ku gaala iyo ku muslima iyo ku kastaba. waa inaynu isaga ku tasallux, waa inaynu isaga hub ka dhigannaa oo uu noqdaa wuxuu uu sheegayaa wixii aynu saxa ku garan lahayn. inta xanuunku ku dhacday saynu u gallaa. kow, waxaan leenahay dhallinyaradan wareertay ee afkaarta qaldane tirada badan le laga dhaadhiciyey, waxay u baahan yihiin cid la niqaashtanta ee in lasii durkiya uma baahna. inaynu intaynu ceebayno ereyno oo fogeyno maaha. laakiin laa takunuu cawnan lishayطaani calaa akhiikum, xadiidkii imaamu axmed soo saariyo qolyo kaleba, inkastoo sanadka culammadu ay daciifiyaan, laakiin shacayb alarnauuti duruqdiisa intuu wax isu gegeeyaa buu taxsiininaya. ninkii gacanta la jaray ee uu nebigu ka yara murugooday say sheegayaan, kaannaka karihta qaطcahu bay yidhaah, ilahay rasuulka malaa gacan goyntiisa kan waad nacday. wamaa yamnacunii buu yidhi laa takunuu cawnan lishayطaani calaa akhiikum. ama xadiidkii kii khamriga cabay ee markii dhowr jeer la keenay ee dhowr goor markii dambe ay qaar lacnadeen oo maageen oo ku lahaa innahu yuxibu allaha warasuulah. waar ilaahay ha ugu kaalmaynina shaydaan buu nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam. qodobka labaad waxaan leenahay itaaxat alfursa lishabaabi an yubdi kula maa cindah, inaynu ka waran siino oo fursad siino bal ninkan waxa madaxiisa ka guuxay oo dhan inuu soo bandhigo, waxba inaanu la khajilin. hadduu markuu erayku yidhahda afka kaga boodo, dee wixiisii wuu la aamusi, laakiin way ku duugan yihin, waxba kamaa daweynin, waa ku duugan yihin. weliba waxay u badan tahay inay ku sii badato uun cid dambena aanu wax weydiinin, bale gruubkii iyagu negatifeka u sharxayay inuu ku sii xidhmo uno ay shubahaadka ku sii badiyaan, cid shubhadan ka saartana aanu haysanin. sida awgeed nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam gaal baa u yimi, ay carabi u soo dirtay. waa gaal loo soo diray inuu nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam diinta ka saaro. aduu ka fiirso, cutba bnu rabiica abalwaliid waxaa loo soo diray inuu nebi maxamed diinta ka saaro. dabeetna nebiga intuu yimi proposals buu la yimi, niyow haddaad waxaan doonayso waxaasaanu ku siinaynaa, haddaad kan doonayso kaasaanu kaa dhigaynaa, haddaad kan doonayso, laakiin dee ilaahiyadada iyo waxaad warkan aad ka sheegaysaa dhaaf. marka wuxuu wadaa in compromise diinta laga galo, laga heshiiyo, oo isaga iyo nimankii quraysheed negotiation ay wada galaan, oo nebigana la siiyo wixii uu baahan karo. haddaad boqor doonayso boqor baa laga dhigayaa, haddaad xoolo ku doonayso waxa kan annagaa ninka ugu xoolo badan kaa dhigayna, haddaad gabdho doonayso inanta ugu fiican baa lagu guurinaya. yacni wixii maadiya aad rabto ee nolosha ku saabsan you will get it. laakiin waxaanu u baahannahay uun dee inaynu masaa'ilkan ka wada hadallo, aad ilaahiyada iyo baabkan cayda ka dayso. nebigu waxa iyadoo loo akhrinayo u dhegaysanayay, kuma odhanin war bal waxaa gaalkii wuxuu ku hadlaya day gaalnimadaasaad ila timi, kuma odhanin, ee wuu dhegaystay. markuu dhegaystay uu ninkani warkiisii gaalnimada ha dhammaystay, nebigu uma jawaabin markiiba, wuxuu ku yidhi afaraqta yaa abalwaliid, warkii ma dhammaysatay weli mise waxbaa kugu hadhay buu leeyahy. yani isagu weli rabaa inuu jaan siiyo.
afaraqta yaa bal warkii ma kaa soo wareegay buu leeyahay hadalkii ma ka baxday ma dhammaysato markaasuu yidhi haa markaasuu nebigu aayad qur'aan ku akhriyay suurad suwarka makiga qaybteeda hore ka mid ah ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ku akhriyay suuraddii markii uu dhegaystay ayuu nin carbeed afkana garanaya buu ahay wuu isbedelay dabeetana nimankii carbeed markuu noqday waxay dhaheen wallaahi rabiica ibnu cutbata ibnu rabiica sidii uu inagaga tegey si aan ahayn buu la soo noqday bay dhahay ninkii aynu diray warka aynu ku diray ma aha maxaan qisadan uga dan leeyay qisada imaam alalbani wuu taxsiiniyaa fii siiratihi waxaan leenahay waxa weeyaan qofkan inaynu dhegaysano bal horta waa ibtilaysan yihi dhib baa haysataa laakiin mashkilaadkiisa kan iyo waxaan madaxiisa ka guuxay iyo waxaanu ismoodsiiyey ama waxaan loo akhriyay inaynu ka dhegaysano waa mid labaada inaynu ogaanana xiwaarku dee qur-aanka ilahay wuxuu inoogu sheegay ambiye xataa ilaahay wax weydiisanaysa waid qaala ibraahiimu muxuu nebi ibraahim yidhi rabbi arinii kayfa tuxyi lmowta ilaah waxaad i tustaa dadkan dhinta bal sidaad u soo noolaynayso ama nebi muuse inuu yidhahdo ilaah waxaan rabaa inaan ku arko idan su-aashu waxay doonta ha ahaato waxaynu u baahannahay dadkan inaynu dhegaysanno oo qur-aanka ilaahay wuxuu inooga warramayaa gaalo badan oo xiwaar lala sameeyey qaar wax diidanaa baa ilaahay wuxuu yihi qul waxaad ku tidhaahdaa ara'aytum maa tadcuuna min duuni illaahi arunii maada khalaquu min alard am lahum shirkun fi الsamaawaat iituunii bikitaabin min qabli hada aw athaaratin min cilm in kuntum saadiqiin ilahay wuxuu leeyahy waxaad ku tidhaahdaa war bal waxaan aad baryaysaan ee cibaadada ula imanaysaan itusiya dhulkan waxay ka abuureen maada khalaquu min alard am lahum shirkun fi الsamaawaat kownkan dhana sidan u dhisan ma qayb bay leeyihin ma shuraaka ilaahay ku leeyihin iituunii bikitaabin min qablu hada kitaab hore waxaan ka warramayo sidan ku doodaysaan sheegaya hadduu jiro keena aw athaaratin min cilmi ama raad aqoomeedo waxaa sheegaya hadduu jiro keena yani islaamku cilmi ma diidana laakiin ilxaadku cilmi maaha waa shubahaad laysu geegeeyey saasi awgeed baa ilaahay wuxuu tilmaamayaa xiwaar in lala galo kuwa waxa kana aaminsan ilmahaaga ama ka kugu dhow ama kan xanuunadani ku dhaceen markaad ka dhegaysato wuxuu u baahan yahay inaad maagina haddaad adigu aqoontaa leedayna inaad u jawaabto haddaanad aqoontaa lahaynna inaad u baadi doonto tabiib kaloo daweeya ilmaaga xanuun caadiya markuu ku dhaco dee haddaad anigu dhakhtar ahayn oo daweyn karan in dhakhtarbaod la raadisaa soo maaha yaa dhakhtarkee fiican baad tidhaahdaa iyo takhasus wadneed yaale iyo waad waraysi tagtaa adigoo raba ilmaha inaad jiradan ka daweyso fakadalik tanna waa jiro kale uun jiro kaloo ku dhacday adigoon waxba war waxay ahayd inaad u raadiso tabiib kaloo daweeya tabiib alquluub dadka ah ee shubahaadka qalbiga bini aadamka ah gala daweeya inaad u raadiso weliba waxaa fiican xiwaarkaasi inuu kitmaan ku dhaco waxay jecel yihiin inta badan inaan la ogaanin inay waxay rumaysan yihiin waayo cultural pressure baa jira oo inanka dee reerkoodii caddaabaa walba waxaa rumaysnaa markaa waxa kan iska qiranaya waxba uma arko innaga waxaa jira cultural pressureku wax jira oo nebigu calayhi salaatu wasalaam nin baa u yimi wuxuu yidhi jaarkaygii baan khaatiga taaganay jaar aad u xun buu lahaa nebigu wuxuu ku yidhi alaabtaada intaad qaadato alaabtaadii guriga intaad ka saarto waddada dhig ninkii sidii nebigu yeelay buu sidii nebigu amray buu aqbalay alaabtiisii intuu soo qaatay ayuu waddada dhigtay dadkii baa soo mara war maxaa kugu dhacay baa la yidhaahdaa jaarkaygaa dhib batayoo dee gurigaygii baan uga imi inkaar alle kugu ridbay dadkii oo dhan bay yidhahaan waa maagaan muxuu ahaa ninkan saan dadka u galay ninkii jaarkahabaa markii dambe u tago wuxuu yidhi waryaha dib kuu dhibi maaye soo haraysa alaabtaada wax dambe kuga yacni ninkan brasharkii mujtamacaa bedelay
mujtamaca cadaadiskiisii ayaa bedelay saa daraaddeed ilmahani cultural pressureka haysta buu wuxuu ka cabsi qabaa inuu sheegan kari waayo waxaan laakiin wuu rumaysan yahay wuu qarsanaya wuu rumaysan yahay oo wuu qarsanaya hadday daragtay wuu cabbayaa hadday qurunqadhaadhkan tahay wuu samaynayaa hadday tahay caqiidada tan wuu laakiin wuu qarsanayaa walidaalika waxaa habboon bay yidhaahdaan ragga masaa'ilka khubarada ku ahay in xataa haddaad u geyso cid waxa khabiir ku ah inay labadoodun u dhex ahaato aanad sheegin inaad u dayso isaga iyo tabiibkiisaasi waayo lagama yaabo de intaad maalin u geyso inuu fuxuu ku yidhaahdo dabeetana u kaco maaha suurtagal waa adagtay qofka kani shubahaadkani waa ku biireen marka wuxuu u baahan yahay muddo in xiwaar u furmo labadooda tan oo masaa'il badan maalinba mid laga doodo oo maalinba mid oo waxaa laga yaabaa bila inay qaadato laakiin bila kadib inuu qancin karo waana tajribe aan aragnay rag u dhuun daloola masaa'ilkaasi oo culamo ahi dad badan oo ay diinta ku soo celiyeen oo loo keenay calaa hada alasaas bay ku daweeyeen inay uun labadooda dooda u dhexayso aan cid kaleba ogaanin siday u wadeenna ay markii dambe qanciyeen waxaan ku soo koobaya markaa ilaahay qur-aanka wuxuu inagu leeyahy wawxiya ilaya hada alqur'aanu liundirakum bihi waman balag nabi maxamed baa waxa la yidhi waxaad tidhahdaa wuxiya ilaya hada alqur'aan liundirakum bihi waman balag qur-aankan baa laysoo waxyooday si aan ugu digo idinka iyo ciddii uu gaadhayaba إلهي وحولي وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله قال ذي الاستلامت قال هذا كم دي هدو مغنقلية إذن ويديستو مغنقلية إلا أنتو كم مقلية إلهي وركي سبا رب إليه سبحانه وتعالى ثم أبلغوا مأمنة إلهي قرآن كوحكوت المامية لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة ما أهين ما النقطين منك قالت يكو أهل كتاب كبايني قالوا عودا يدين حمدو دا كبحان ما يسور تقشان إلا يوت من محي بينة دعت ومحي رسول من الله يتلو صحفا مطهرة رسول حق لك يمي وكد الآخرين هي صحف مطهرة فيها كتب قيمة با إلهي سبحانه وتعالى waxaan rabaa inaan soo koobo waxaan ku soo koobaya wuxuu yahay shubahaadkan ma rabo inaan masaajidka kaga dhex hadlo shubahada hebla waxaasay daliishadaan iyo waxaasaa lagu ridiyaa kan dadka wuxuu u baahan dee kutubtay ku qorantay iyo meelahay ku taalla iyo quraanka si uu isticmaal lahayn baynu tilmaamaynaa laakiin waxaan rabnaa inaanu sheegno waxa weeyaan war meesha tan shubahaadkaasi waa tiro badan yihiin iyagoo weliba systematic ah oo schoolinka ka bilaabma ilaa iyo jaamacadda uu qofkaasi bii'ada waxaasi uu ku dhex jirayo ilmahaas idinku dee masaajidka iyo maqaaxidii lagu murmayay iyo intan baa idinku tagtaan gaal kiina ugu badanee laba ula shaqeeya buu arkaa laakiin dadkan yaryar waa isku melmeen meelahan ay wax ku dhiganayeen iyo meeshaanay la joogaan dhibtaasaa haysata shubahaadkaasna waxaynu leenahay waxay dhibeen dadkii aan loo dhigin caqiidadii diimeed oo marka hore aynu moodaynay dadku sidaa ay inoogu midab eegyihiin un inay ugu caqiide ekaan doonaan oo marka hore inaan xil badan iska saarine xilka ugu badan aynu iska saarray inuu noqdo quraanka sida loo akhriyo inaan wax ka barro jisca muu akhriyi karaa tabaarak buu akhriyi karaa sida loo akhriyo inaan wax ka barro sida loo akhriyo waxaa ka sii muhiimsan sida loo fahmo marka wax ku soo koobayaa darskeenna kan dhibtaasi waa jirtaa ubadkiina way haysataa waa mid ku fidmoobay iyo mid qarka u saaran
inta badbaadisa bersentkeedu waa bersent yar. taariikhda bini aadamka soo jireenkana waxay tilmaamaysaa dadka aan iyagu wadanin manhaj wax bedasho dadka kale aan bedelaynin ugu badnaan inay 3 qarni 3 jiil inay ku bedelmaan. dad adugu sidii saxaabadii nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam dad dacwo iyo diin wado iyagu dadka bedelaya yihiin oo manhaj sito iyagu wax dhigaya kuwaas waa group kale. laakiin dadkan kale iska hijrooday kolba meel iska daga 3 jiil un bay sii noolaadaan. jiilka saddexaad dadku ka mid yihiin aduu ka dhashay isagoo yar khafiifa oo afkiina midhar ka garanaya waxoogaa cilmi dhegdhegood yarna diinta ka maqmaqlay kaasi ku sii dhala qiyaas muxuu noqonayaa meeshaasii jooga kaasi ka saddexaad u dhala xaguu noqonayaa. practicalina waa la hayaa. eeg muslimiintii dagaalkii koowaad ee dunida tagtay latin america waxaa ka tegey muslimiin aad u tiro badan oo weliba shaam ka tegay dhulkan la yidhaahdo. atrak baa looga yaqaanaa xaggaa markay tageen waayo baasaboorkii cuthmaaniyiinta ay siteen oo inay turkiyiin baa loo haystaa laakiin waa carab. marka laga eego xagga dhaqaalaha iyo waxa iyo madaxnimada iyo waa madax waa kuwii wadanadan latin america raggii xukumayey carlos mancim iyo hebel yani raggii xukumayey. marka xagga lacagta laga eegana waa tujaarta ugu waaweyn laakiin xagga diinta marka laga eego way tirtirmeen. xataa masaajidu california imika masaajidadan ku yaala qaar ka mid a masaajidii waagaa hore muslimiintaa hore tagtay ay dhisteen qaar baa hadda barking ah. masaajid 7 dabaqaa jiro hadda barking ah. waa barking gawadhida lagu xareeyo xagga sarena calaamadihii muslimka ee kursiya waxbaa ku qoran. barkinga markaad halkaa kaga soo socoto waxaa suran calaamadaa suran islaamiyo tilmaamaya kuway sii dhaleen unba iibsaday masaajidkiina ila iyagu masaajid ba may rumaysanayn daaruun awowyadoodii hore ka tegeen bay hayde. waxaan uga dan leeyahay haddii la waayo waxaan cid iska xil saarta oo wax bedasha oo wax dhigta oo dadkana ilaalisa haddii la waayo 3 guruubaan imika idiin sheegaya unbay ka mid noqon doonaan. 3 guruube trendka ah aan leenahay waa trendiska socda ayay ka mid noqon doonaan. in ilaahay dafirta in qoomamka aan la garanayn ku biirta in daraga iyo waxa ka shaqaysa noocaas uma wakaan doonaan. waxa quray ku badbaadi karaan dadkaynu u niminaynu ku badbaadin karnaa waa inaynu diintan sheegno inana isu sheegno kuwan aynu u nimina aynu u sheegno oo ilaahay kitaabkiisa dadka ugu yeedhno. wax kastoo xanuunoo jirana ilaahay qur-aanka wuxuu ku yidhi qul huwa liladiina aamanuu hudan wa shifaa wanunazilu min alqur'aani maa huwa shifaaun waraxma lilmu'miniin. qur-aankaasi wuxuu yahay dadka mu'miniinta hudan wa shifaa shifaaun lima fi suduur laabta waxa xanuun galo oo dhan midda weeyaan. qur-aan baanu soo dejinay baa ilaahay leeyahay caafimaad wax laga caafimaadana cuquusha iyo qulubta ugu fiican. haddaad labadaa ka waalato waxba nolosha kale ma tarto. dhadhan male nolosha kale. dad balaayiin haysata dhadhan male. noloshu waxay dhadhan leedahay markaad labadaa ka nooshahay. khitaaman lidars dhibtaasaa jirta dawadiina ilaahay kitaabkiisay ku jirtaa. labadaa wax baynu u baahanno taxsiin inaynu samayno marka hore badbaadinno intaanay waxaas ku dhicin iyo marka labaad oo ah cilaaj fiican inaynu samayno. sala allahu calaa muxamedin wala alihi wasaxbihi wasalam. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد أنت كدب وحان لنا مركب جوهر رئيس إلهي سبحانه وتعالى ميزانك حسنات كيس هيا الشيخ مصطفى محاضرة آديات كقيم كوهيد وحين هاي سنة إلا 2 دقيقة لو 3 دقيقة إن شاء الله تعالى
wax su'aalo mawduuca ku saabsan oo mawduuca sheekhu imika uu inoo tilmaamay cid haysa ma jirtaa insha allahu tacaala 2 daqiiqo maasha allah xaggaa dambe xaaj cali hindi maasha allah haya ما شاء الله horta inaynu isfahmnaba fiican neefintan sheegaya waxaan ku idhi qofka inaad adigu xiwaar la gasho waxaan kaloo kuu raaciyay bilkitmaan inaad qariso anu kuma odhan tv-ga intaad suu yeedho maxaa diintu ka qabtaa dheh laakiin waxaan rabnaa waxa weeyaan ilmahaad adigu dhashay mushkiladu ku dhacday saad ula dhaqmi lahayd baynu ka warramayna kama warramayno waxaanu idhi isaga iyo qofka uu xiwaarku ka dhaxaynayana ha u qarsoonaataa ku idhi kuma odhan dadka kale ha ogaadaan ama ha la faafiyo mawduucan inaan halkan kaga hadlo waan diiday waayo uma arko dadkani dad mushkiladan qaba inay yihiin waa laga yaabaa meelo ka gedisan inaan hore kaga hadlay laga yaabaa youtube-ka haddaad gasho inaad dasho 5-6 cajaladooda waxaan ka hadlayo ka hadl laakiin waa dad gaara waa dadkii waxaan qabay ee xanuunsanayay dee haddaad wax xidhxidhi karaysaanna iskuma baynan soo dhowaaneen dad badan baan marinaya حياك الله حاج أذير سودو حاج عبد الله waxaan u malaynaya masaajidkeenan hore ugaga hadlay af soomaaliga iyo waxa ku saabsan oo tilmaamaya qofka soomaalinimadiisa inuu haysto dhaqanka soomaaliga ee asligiina waa diin waalidkan iyo waxa keenay waa diin qofku markuu muslim yahay diintiisa haysto ayuu dhaqan haystaa laakiin haddaanay diin noqonin dhaqan cidina ma ixtiraamto haddaanu diin ku baysgaraysnayn oo waxaan culture-ka la yidhahdo waxyaabuu ciddii doonta ha haysato wuxuu ku baysgaraysan yahay waa ideology waa diimaha dadku ay haystaan haddaad diinta maydho waxa kale ma hayn kartid sinaba uma hayn kartid waa leenahay soomaaligiinii xejista dadnimadiinii xejista diintiinii xejista intuba waa asal bay inoo wadayiin waxaad moodaa waayadan dambe cilmaannimadu inay jeceshahay in dhaqanka iyo diinta la kala saaro dhaqankana ay ka soo qaataan muusiga iyo digdigta war xataa muusigu dhaqan soomaali ma aha bigiladii ugu horreeye la tuma hinda inoola timi cuudkii ugu horreeye la garaaca cadan carabtii ka timi iyo soomaalidii la socota inoo keentay inagu jaandheer bay ahayd xataa haddaad dhaqan rabto waxaa la tumi jiray sacab iyo caga dhulka lagu garaaco islaamaad durbaan yar gargaraacan jiray ma jiro حتى موسيقى دم دقة الصومالي ما هو حد أنا هالنقطة على كل حال دقة الصومالية وحن رميسين إنه دين جاي دين وحي خلاف سنة ودقة نقطة كريم. السلام عليكم.